ككع فندقة نو والله بقول لك قاضو جدك الشعب بيل يا الشعب وينو هربيسة وينو مدحتويدي وينو يربي يحس إنك عدت وأقول لك لها قول لك القفوة ودي أدرسه لبن وحلا يلاقي بدل بين النبات كباقني بل يلا كعيسان الله الضيع يربي حيوك بحي المدحتويدي عدت وأقول لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا halka waxaan ku duubayaa xaaladda dalka maanta ay joogto ayaan jimcaynaan kaga hadlo waxaan leeyahay musabiixow in badan baan ku barinay in badan baan ku leeyahay dalka sida ka dah in badan baan ku kala hadlay in badan baa doorasho qaban laga karin waayay maanta waxaan u maleynayaa waa maalintii kugu dambeysay waxaan filayaa hal maalintii adiga iyo ubadkaaga sidii heer saamil doo lagu dayday jiray kiishka bariiska ah wala waxaan u maleeyaa adiga carruurtaada in kiish bariis lagu dawri doono la oran doono qofkii soo arkay halka joogo kiish bariis la sameeyo waxa ka dhacday wadanka Liberia saamil doo ninkii loo jiray markii la afduubay qoladii bacaaradka ay wadanka qabsatay ayaa saamil doo lagu qabtay madaxtooyada dabeetana waxa la yiraahdaa carruurtiisa iyo eelkiisa mee qofkii soo arkaa kiish bariis uu leeyahay maanta adiga yeelan ka dambiga ka gashay shacabka reer Soomaaliland kiis bariis la idinku baadi doono waa shakila inay maalmaha kamid ah la idinku baadi doono kiis bariis dhalinyarada magacayga taqaana ee muuqayga taqaana waxa ka codsanaya ee gobolka Togdheer joogta gobolka Togdheer waxba ka dhicmayaan waa nabadgelyo waa buqcadii Soomaaliland laga xoreeyay iyada lagu safaad maayo shacabka jooga waxa uu leeyahay istijiya laakiin waxa la tagayaa la isku qabsanaya meesha madaxtooyada Hargeysa wayno Hargeysa wayno madaxtooyadii wayno ila bixisi gacanta loogu dhigi lahaa si loogu qaado dambiyadii uu sameeyay ilaa 91 ilaa 2023 la sacaanood uu ka geystay sidii kiiska loogu qaadi lahaa wayno gacanta ku dhigi oo baxsan ninkaasu inaanu baxsan oo dalka ka bixin gacanta loogu dhigay maxkamadda caalamiga loo soo taagi lahaa oo la soo geed qabana yaa wax kale lagu saqajaamin yaa beel waxba loo oranin yaa dalkeena wax meel kale la dubin haday meel dumayso madaxtooyada hadunto haday meel dumayso madaxtooyada hadunto qof kasta oo magacayga iyo muuqayga garanaya waxa ka codsanaya dhalinyarada reer Soomaaliland dhalinyarada reer Burco waxaan leeyahay isbedel doonka ah waxaan leeyahay ila buuxiyo Burco iyo Hargeysa ka baxsan gacanta lagu dhigo hal soo taaga maxkamad ka kaca fadhiga nin walba boqol laga qaado dadka shacabka beel iyo shacab iyo beesha ka soo jeedo iyo habaro wal iyo wax qabyaan la muslim midna ma jirto ila bixin gacanta lagu dhigaya iyo inta la socota ee heegada waxaan maleynaa heegada reer taqaanaan heegada reer maaha ila sulba ku jira oo ina adeerkaya marka waxaan leeyahay khalaga kaca fadhiga qoriga qof oo diyaar gareyso labad wax la yiraahdo in badan been nabad ku baaqnay dalku nabadgelyada in yar oo haday dhimashadu badatana aan 10 qof ka bandhayn ayaa inaga dhimanaysa madaxtooyada daar burburaysa ma jirto ganacsi isbedelaya ma jirto dadku nolosha caadi bay ahaanaysaa burcana waxaan leenahay reer Burco waa waxa ku sugantii warma haysan dabka 70% dab ma shidato 70% dalkan dab kama baxo saddex miil baa wax la cunaa qaar baa saddex miil bay makeelina wigi laba maalmood wax la lamiya ummadda baakay ku haysaa wasaarad baa u dhimanaysa ganacsiis xid hudheeladiisa doonta wax dhexbara hudheelka daala ka furan oo isagu waddanka ku furan oo lacag farabadan baa lagu leeyahay kawaa hadda magaalada Burco wax ka cunto war waxa waddanka yaala warma haysan oo iska qaado dulliga qoolku waxa la qoon ilaahay ma duleeyay iyagu istuleeyay mooyaane war dulliga iska fujiya ka kaca fadhiga anagu waan diyaar garownay isbedel doon hadaan leeyahay diyaar garownay reernimo kuma na diyaar garownay waxa ku diyaar garownay qarannimo waxa ku diyaar garownay xisbiya mucaarida waxa ku diyaar garownay dad doonaya in isbedel wadanka ka dhaco waxaan leenahay ummadda ka kaca fadhiga qorigiina qaata u diyaar garooba ila bixiyo baxsada marka ka dardaarmaya waxa weeye dhalinyarada kacaysa la hadlaya ila bixiyo ka bixin madaxtooyada gacanta lagu dhigo hala saara maxkamad إلى كوب يسقاشكي إلى الله بدك يصلح الله تكيل أسعود وحكي جستي وإن الصوت هذا محكمات
وين هنا كيس الله وحنا كاك بحيا أنا هذا كيف كسب ركبينية دراسة طلع وضياشة صلاة دينتا قوتي وراها بارلمانكا وحلالي وحي وحقرنا وحن كل دلك هو بابا إياه دلك وحبك بتشوغان إيه الباكا هذي وليت هلا بدبادي أنت هلا بدبادي كدا يسوى صراحة إلى بيحيى الله برين ودلك السياد بدال غيري ودلك الإنجليز بدال غيري ودلك المصري قومي الله صبري وليك ما تيجي بديني لما تكون متربع لما تكون متربع لي إيه الدنيا يوتدي سؤال وحكراها إلى الدنيا إن مالتا وإذا كل عليهم الحتوية لو سمعتوا ما أقبلينه واربوسي شغل ما أقبلينه إلى البيش نوفمبر سنة قالنا ما أقبلينه إلى الدرك سنة كسي ما أقبلينه دور شيء وحكبه تلك والله قبليا وحاولين بدحوله كحجاك وأردي أرجعوا سأل بيش كوميتونا ده لما كل يافري لاتك أدور شو بيرتين ليتك قصارنا وعلى قبل قصارها الدجال كان عيا إيه ما تعني إعلامي ما نقول اليوم ميت قصار رجول فيقه وحول يوم ميت قصار يسوق هبوا مدي يرون ترى كل ما طا من بلحتوي يقول إذا بيقول برطا وينو بيسند ولا بلحتوي ده قف شعبنا يروح كل هذا دول مينو جناح تقول استعجل دول جناح سبب ما تري وحصلنا يا استعجل دول مينو وحولنا إلى بحبك عن ترى ولا جيا كذا عفن ده اللي يروي اسبتل دونه وعن ذي باقيا oo idinku baaqaya in caasimadda Hargeysa la galo in madaxtooyada la weeraro in aan beel kale waxba ka dhicin in aan beel loo jeedin in aan qabyaalad loo jeedin in aan qolo la doonin taargetkeenu noqdo in bixo kaliya nafar kali wax kale oo aan lagu taabaabay jirin waxaan leeyahay heegoy warina bixi wala qabanaya iskaga hal